وحناها يوهديك دوسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعطي عشر كلمات وكسر السكيلات ومادة علم البشرة والعلمية بوجاني علم البشرة كسر السكيلات بيج كيسة بقولي كونتم يتطلب إلا بقولي سديد كونتم وجدوين يقولوا كترمل يقولوا كترمل يعني صور يعني وجدوين كيسي وحي كملها عمره الورد السيء وجدوين يقولوا كانوا سنين أنتي يقوم بمسنين ayaynu dhiganaynaa maanta ujeedooyinkaas waxaa ka mid ahaa kow in la adkeeyo nabadda lana tirtiro dagaal in la adkeeyo oo midibada loo taago nabadda lana tirtiro wax dagaal la yidhaahdo aan adduunka wax dagaal oo dhanba ka dhicin ayay ujeedada ururka ka mid ahaa ama kow ka ahay lambar laba in xididada loo siibo dhammaan wixii keeni karaa iska horimaad iyo in la dhiirigeliyo iskaashiga adduunka oo dhan in la tirtiro ama xididada loo siibo xididada waxaa la yidhaha geedka markuu baxayo ama baxayo xididada dhulka u daray hoose haddii geedka xididka hoose loo soo siibo dee uu dhacayo ama joogayo geedka sidaa daraaddeed haddii xididada loo siibo ama la dhamaystiro wixii keeni kara iska horimaadyada ama dhiirigelinaya iska horimaad waxaa dhacaysa inaan dagaal dhicin ama dagaal uu baaqdo oo aan dagaalku sidaa markii si degdega u soo dhigno iyo in la dhiirigeliyo iskaashiga adduunka ee dhaqanka dhaqaalaha bulshada waxbarashada sayniska iyo dhaqanka in la dhiirigeliyo iyadana dhinaca dhaqaalaha oo dhaqaalaha la taageero oo dhaqaalaha wada adduunka kor loo soo qaado in la dhiirigeliyo iyadana ama dhanka bulshadana iyadana hore loo qaado oo bulshada loo sameeyo waxyaabaha arrimaha bulshada ah ee bulshada dhiirigelinaya in waxbarashada kor loo qaado oo ay waxbarashadu noqoto mid qabalagaadha adduunka oo dhan wax horumarna gaadhsiisa dadka sayniska dhinaca saynisku waa dhinaca teknolojiyada had iyo jeer lagu maamulo oo waxaad moodaa in adduunku sayniska teknolojiyada uu meel sare imika ka gaadhay taasna waxay keenay dhaqaajintii la dhaqaajiyay in la dhiirigeliyo ama la taageero ama la horumariyo iyo dhinaca dhaqanka in dhaqanka adduunka qolo waliba dhaqan leedahay dhaqankeeda lagu taageero oo aan laga hormarin saddex in la dhowro xuquuqda dadka oo dhan qof ahaan wadar ahaan iyo qaran ahaanba in la taageero ama la dhowro la ilaaliyo xuquuqda dadka oo lagu tumanin xuquuqda dadka oo loo ilaaliyo qof ahaan shaksi ahaan loo ilaaliyo wadar ahaan ama dadka oo badankooda oo dad badan ahaan loo taageero oo loo ilaaliyo iyo in qaran ahaan loo ilaaliyo qaran walba xuquuqdiisa la ilaaliyo qaranna xuquuqdiisa meel laga gaadhayo laamaha qaramada midoobay ama laamaha waaweyn ee ururka qaramada midoobay laamaha waaweyn ee ururka qaramada midoobay waa 6 laamood wuxuu ka kooban yahay 6 laamood oo waaweyn kow ta koowaad waa golaha guud ama golaha loo dhan yahay waa golaha guud ama golaha loo dhan yahay meesha la yidhaahdo golahani waa meesha ay ku kulmaan dhammaan wakiilada dalalka xubnaha ka ah golaha guud waa meesha isugu yimaadaan ama araha ku kala qaataan ama afsiyaha isku weydaarsadaan dhammaan wakiilada ka kala socda dalalka adduunka ee ku jira ururka ama dalalka xubnaha ka ah ururkaas halka ay ku kulmaan ee isugu yimaadaan dalxubnaad kasta waxa uu soo dirtaa 5 wakiil dalxubnaad kasta dal kasta oo xubinka ama dal kasta oo ururka ku jira wuxuu soo dirtaa 5 qof oo wakiilka ah dalkaas inkasta oo qaran kasta uu leeyahay hal cod 5 wakiil markay wada hadlaan ama wax naaqashaan ama wax ka wada hadlaan hal cod ay waddankaas yeelanayaan 5 qof waxa ay soo jeedinayaan hal cod ay isku soo raaceen ay la soo fadhiisanayaan golaha oo 5 qof mid walba cod gaara ma yeelanayo dal walba wuxuu yeelanayaa hal cod 5tiisa wakiil ee uga wakiilka ahi markay go'aan isla wada gaaraan meel wax isla dhigaan hal cod ayay soo jeedinayaan ama dalkaas hal cod ay ku yeelanayaan sanadkiiba mar ayuu shirka isugu yimaadaa goluhu sanadkiiba hal mar ayuu goluhu shirka isugu yimaadaa markaas waa kii shirkaas oo bilaabma bisha September shirkaasi had iyo jeer wuxuu bilaabmaa bisha September xilliyada ay bilaabato soo وحناها يوهديك دوسية. وحناها يوانا معلمك
وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي ونقى معلمك واجي بريبا أو بحلقة ورابسو واجي بريبا أو بحلقة ورابسو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجبكيسا وهسنينو وابنينو وروريقي مينو ويوان مينو وهسنينو وابنينو وروريقي مينو ويوان مينو قولوا عني عدوك وابو نور الوناكن أيو برواقو نبت لقو وداقو أكوار وادكين قولوا عني عدوك وابو نور الوناكن أيو برواقو نبت لقو وداقو أكوار ودنكين ودني شركين ورابنا يجيكو أكوار ودنكين ودني شركين ورابنا يجيكو أكوار ميزانية الروح وبعض القشة للدولة وتشيو الله قدر في عوامل بحنا وحي عفمر وبحنا وحي نقالة كبس وبحنا وحي وضمن نقالة وبيترسيها وحي عما صورني مقدر يا مقدر حد يجي أي قرار ولا بحنا لما وضم ولا وحي وبحنا يلا الله بحنا يستلوك النقالة بنيه قرب الصدحات إلا ضغطة حبناها قراها إيمان إلا ضغطة أما إلا ضغطة قراها جود حبناها قراها إيمان قراها إيمان حبناها كم قناية أما وضمن حبناها كم قناية إلا يجوا صوت ضغطة قراها جود رأي يجوا صوت إيمان قرب كافرات إلا كرميرة شقالة قيمها بدنا يروح إلا كرميرة ورقي شقوين كافرها بدنا يروح ويواي يروحوا شقوين عارف بدنا يروح marka shaqooyinkaas waxay u baahan yihiin in lagu kormeero dadka gacanta ku haya haddii kale aan kormeerjirin waxaa dhici karta wax walba si kale u dhacaan oo musuqmaasuqo oo dayacnaco oo wax walba ay dhacaan ayaa dhici karta sidaa daraadeed markaa waa inay ku ilaaliyaan ama ku kaantarooraan shaqaalaha haya shaqooyinka faraha badan laanta labaad ama qaybta labaad waxa weeyaan golaha ammaan kii koowaad muxuu ahaa golaha guud ka labaadna waa golaha ammaan golahani wuxuu qabtaa fadhiyo joogta ah golahan ammaanku wuxuu qabtaa fadhiyo joogta ah oo waqtiyo badan uu qabto sidiisii kaba kale hal mar ma jiro sanadkii laakiin isagu wuxuu qabtaa fadhiyo badan oo joogta ah goluhu wuxuu markii hore ku bilaabmay 11 xubnood oo 5 joogta tahay 11 xubnood oo ay 5 joogta tahay oo ay joogta yihiin oo aan marnaba ka maqnaan karin iyo shaqo shanta xubnood ee joogtada waxaa ka mid ah Shiinaha كاملة فرنسيسكا وكاملة مرايكا وكاملة روسيا iyo إنجليزكا شنطة وطن عشرينها فرنسيسكا مرايكا روسيا iyo إنجليزكا شنطة من الواجهات ويا وشيء أي كم قيم أنا بقول أي كم قيم مجنون iyo sagaal xubnood oo aan joogtahay oo soo doorto golaha shan sagaal xubnood oo iyagu aan joogtahay in la bedelo marba bedel qaata ama bedel la bedelo ama kii markaa hawsha aan qaban kari waayo la bedelo oo ayagana ay soo doortaan golaha ayaa ka mid ah marka waxa weeyaan sagaal iyo shan oo isku imsa intaas ayaa ah waa fureeto muddada xubnimadoodu waa 2 sano sagaalkaas xubnood muddada
xubnimadooda ama muddada ay xilka hayaan waa 9 sannadood. sanadku markuu ahaa 1965 ayaa la kordhiyey tirada xubnaha aan joogtada ahayn. tiradii xubnaha aan joogtayna 9 ahayd ayaa waxaa la kordhiyey sanadku markuu ahaa 1965 sagaalkii xubnood waxaa laga dhigay maxay iyadoo laga dhigay 10 xubnood. sagaalkii waxaa laga dhigay maxay 10 baa laga dhigay waa sagaalkii aan joogtada ahayn iyagoo aan mar walba golaha fadhiyin ee bedelka lagu keeni karaya ama lagu samayn karaya ama la bedelayay ama mid hal bedel ama laba hal bedel ama saddex hal bedel dhammaantood hal wada bedelay iyagoo sagaalkii aan joogtada ahayn waxaa laga dhigay 10. goluhuna go-aanaduna waxay u baahan yihiin ugu yaraan marka go-aan la soo jeedinayo ama goluhu go-aan soo jeedinayo waxaa loo baahan yahay ugu yaraan 9 xubnood oo ka mid ah 15 xubnood. markii ay 5 joogto ahayd intii kalena 10 laga dhigay aan joogtada ahayn waxay isku noqdeen 15 halkii marka hore 14 ka ahayd 15 ayay noqdeen. marka go-aanada waxaa loo baahan yahay in ay ugu yaraan 9 xubnood ka mid ah 15 inay cod ku taageeraan inay cod gacantaaga ugu taageeraan marka go-aan la soo jeediyo ugu yaraan 9 xubnood inay gacan u taagaan. xubnahan waa inay ku jiraan dhammaan 5 xubnood ee joogtada ah. 9 xubnood waa inaanay ka maqnaanin 5 xubnood ee joogtada ah aanay ka maqnaanin. ay 5taas iyo 4 kale oo xubnaha kale 10ka 4 ka mid ah 9kaas ugu yaraan inay joogaan haddii aan laga badanayana laga badiyo. laakiin waa inaanay ujeedadu waxay tahay aanay 5 xubnood ee joogtada ah meesha ka maqnaanin. haddii mid maqan yahay go-aankaas wuxuu noqonayaa go-aan jaban oo aan lagu wada qanacsanayn. waxay leedahay xubin kasta oo ka mid ah 5 xubnood ee joogtada ah waxay leedahay awoodda veto awoodda la yidhahdo veto oo ah diidmo ay isku afgartaan oo qolada markaa vetooda ridaacaan qof dambe ka daba hadlin waa go-aan aan laga daba qaadan go-aan kale ayay xubin kasta oo 5 ka mid yihiin. 5 xubnood ee waaweynaayn soo sheegnay Shiinaha iyo Maraykanka Ruushka Ingiriiska iyo Faransiisku 5 xubnood xubin waliba oo ka mid yihiin waxay leedahay go-aanka la yidhaahdo veto-ga oo aanay cidi ka daba odhan karin haddii ay veto-daasi dhacdo aan hadal dambe laga soo celin karin oo ay ku joojin karaan go-aan. veto-daas maxay ku qaban karaan waxay ku joojin karaan go-aan. hawsha golaha ammaanku waa inuu xal u helo hawsha ay qabanayaan golaha ammaanku ama shaqada ay qabanayaan waxay tahay inay xal u helaan kolka khilaaf oofmo ama kolka khilaaf soo kala dhex galo wadamada inay wax ka qabtaan isagoo awood u leh inuu qaado tallaabo waxqabad oo uu wax ku qaban karo inuu qaado tallaabo waxqabad ama tallaabo kasta oo uu arko inay ku habboon tahay iyo inuu ugu yeedho xubnaha inay qaadaan tallaabo cunaqabatayn ama ciidan. inuu qabto ou sheego uu soo jeediyo tallaabo kasta ama erey kasta ama wax kasta ama go-aan kasta oo markaa khilaaf oogmaya ama khilaaf dhaco ay wax ku qaban karaan oo ay awood ugu leeyihiin inay ku joojiyaan wixii markaa dhacay waxay noqdaan ma ha ahaadaane wadamada kalena dadka kale ee xubnaha kacana ugu baaqo inay qaadaan tallaabo ku habboon ha ahaato mid ay ciidan ku dalbanayaan oo ay dagaal ku qabanayaan iyo inay noqoto mid ay cunaqabatayn ku joojiyaan. wadamada qaar baa jira cunaqabatayn marka la saaro wixii ay qabanayeen marka laabta oo cunaqabatayntaas oo kaliya ku filan tahay. waxaa jira wadamo aan cunaqabataynta iyo waxaas waxba ka taraynin oo haddii cunaqabatayn kasta la saaro aan danka lahayn laakiin awood ciidan wax lagaga qaban kara ama tallaabo ciidan wax lagaga qaban karo. sidaa daraaddeed ayay markaa labada tallaabo tii marba waxay ku qaban karayaanba ay qaataan. wadamada xubnaha ka mid ah xubnaha ay ka socdo dalalka ka ah wakiiladu intay isla qaataan in cunaqabatayn lagu dhawaaqaan cunaqabatayntaasa la qaadaya haddii lagu dhawaaqay in la qaato tallaabo ciidan oo dagaal la qaado ama ciidan markaa qolada ciidan lagu kiciyana tallaabadaas waa la isku waafaqaya. haddii 5 xubnood mid ka mid yihiin uu veto saaro oo uu diido arrintaasna waa laga joogsanayaa oo marba sidii kale looga wareegi karo ayaa looga wareegaya ama shir dambe oo la isku ogolaado ha la qabto ama tallaabo kale oo tii ka bedelan ha la qabto. si kastaba ha noqotee waa in arrintaasi ay noqotaa mid 5 xubnood ee veto-da ay isku raacsan yihiin oo aanay diidanayn iyo xubnaha kale ee joogtada ah. marka veto-dana waxaa iskale 5 xubnood ama 5 xubnood ee ka socda wadamada 5 ah ee aynu hor usoo sheegnay ee waa joogto. wadamada kale
ama diidmada qayaxan waxa qaad iyo iska samayn kara shanta waddan oo keliya casharkeena maanta intaa ayuu ku kooban yahay inta kale qodobada hadhay ay ka mid ahay maamaha kale ururku iyaguna way noo sii socon doonaan casharkeena casharka ku xiga ayay noqon doonaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu casharkana waxaa ka eegaysaan beejajka halka noogu qoran 107 ilaa 158 ayaad ka soo akhriyaysaa